jannada inay galaan iska dhaafi carfiga jannadana kuwaasi heli maayaan. waxaa kaloo nabigeenu uu ka digay sallallahu alayhi wasallam haween buu nabigu sheegay xilligiisii adduunka aanan joogin iman doona buu nabigu aakhira zamaanka waa kuwa nuuceeya dhar bay moodeen inay xidhan yihiin buu nabigu kaasiyaatun caariyaat way huwan yihiin dharka way xidhan yihiin laakiin waa qaawan yihiin buu rasuulku yidhi dharkay xidhanayaan baa dhar khafiifa ah ama dharkay xidhanayaan baa dhar ku dhajisan ah deedna cawradoodii buu bannaanka dharkaas u soo saarayaa maa'ilaatun muumilaat baa nabigu waa kuwa qalloocan oo markay dariiqa marayaanna way isqalloociyaan ragga meelaha joogana way qalloociyaan buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo sida raggu usii eegayaan ay isha ula sii raacayaan ayaa iyakuna la qalloocsamayaan kuwa noocaasa buu nabigu yidhi jannada gali maayaan carfiga jannadana heli maayaan buu yidhi janno inay galaan iska daaye udgoonka jannadana heli maayaan buu rasuulku yidhi udgoonka jannadana 500 oo sano meel jannada ay ka dhowdahay marka loo jiro ayaa la uriyaa buu nabigu yidhi carfigeeda jannada inay galaan iska dhaafi carfiga jannadana kuwaasi heli maayaan zamankana waad u jeedaanoo bannaankaasee gabdho badan ay tuman yihiin ay u baxeen deedna ma aragtaan axaadiista nabigeenna sallallahu alayhi wasallam baa ku caddaatay inay kuwa nabigu sheegaya iyaka ay yihiin